wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Somaliland iyo waliba gudida gacanta ku haysa dhismaha jaamacadda degmada Sheekh ayaa maanta kulan la qaatay odayaasha iyo waxgaradka degmada Sheekh oo ay xal waramayeen halka uu marayo dhismaha jaamacaddaasi iyagoo dadka ku dhaqan degmada Sheekh iyo guud ahaanba Somaliland ku booriyay inay ka soo qayb qaataan dhismaha jaamacaddaasi isla markaasna meel kala soo jeestaan gudida gacanta ku haysa dhismaha jaamacaddaasi waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maayirka degmada Sheekh Ibrahim Cabdullaahi Cabsiye iyo xildhibaan Khadiija Xuseen Xaaji Xasan oo si faahfaahsan uga warbixiyay xaaladda jaamacaddaasi isla markaana bulshada u soo bandhigay waxay uga baahan tahay jaamacaddaasi bal waxa aynu wadno iyo qaybta reershi ka qaadan doonaan qaybta hooyooyinku qaadan doonaan qaybta dhalinyaradu qaadan doonto qaybta aqoonyahanku qaadan doono qaybta Allahumma salli ala Muhammad ganacsatada reer Sheekh qaadan doonto intaba waa ka tashan doontaan idinkoo xor u ah abaabuli doontaan sida lacagta u ururinaysaan iyo sida wax u bixinaysaan idinka taalaayo haddii aynaan wax bixinna ee waxay noqonaysaa meel aynaan lahayn inay hawl khabiir u tahay oo ka fadhiya muqusba taariikhda Sheekh meel fog bay tagtay maanta halka joogto qofna muran kagama jiro caruurteedana halka u dalan dooshay iyo tijaartii halka caruurteedii la qabatay waa ogtihiin qof kasta oo reer Sheekh mid yar iyo mid weyn kuuliga wax dhisa waxa laga rabaa inuu wax dhigo wax ku darsado geesta kale waxa iyaguna halkaasi hadalka isaga daba qaatay odayaal iyo waxgarad tiro badan oo dhammaantood sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dhismaha jaamacaddaasi isla markaana baarigay una mahad celiyay gudida gacanta ku haysa dhismaha jaamacaddaasi gudida iyo dadweynaha reer Sheekh dhammaantiin soo qaybgalkan ka soo qayb gasheen shirkan iyo gudida inta magana soo socotay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa hawshan aad ku jirtaana aad iyo aad baanu annagu haddaan reer Sheekh aan magaca reer Sheekh ku hadlayna idinka mahadnaqaynaa waxbarashada qiimaheeda isu sheegi mayno reer Sheekh waxaan ku faa'iidnay magaca ku helay qoys walba oo inaga mid ah gurigiisa iyo maxaan ku raadin taariikhdiisu ku saleysay oo garanayna dadka halkan jooga waa asadkii Somaliland ayaa halka fadhiya weliga bareer Sheekh ha ahaadaan laakiin waa asadkii Somaliland ay lahayd jaamac baan ka tilmaamay jaamacadda bisa la yiraahdo Talyaaniga ku taalo waa ninkii wanka u galay sidee meel u socotay بدأوا الشعب هنا يسوي عمروا كلام بيليهين مركز الحمد لله رب العالمين ما تهاك وحكى صلاة وحرأي وحصلني رأي وحصلني والشيخ بيسكول جوه الرأي كان اسمه حتى لما عرفها واحد صدق جاء من الكوري هذا يمكن دائما الكدوري كذا الكلام نبقى عليه بقولي gabadhii waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland iyo qoraa Jaamac Muuse Jaamac iyo waliba sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Dr. Saad Ali Shire waxa kale oo muhiim u ah iyadana la dhameystiray oo ka warhaysaan oo hoolka laftiisa ku ahaa ugu furay in la bilaabo dhismihii deerka jaamacadda marka maadaama jaamacaddu ay tahay jaamacad babliga ama jaamacad dawladeed oo bulshada ku ah reer Sheekh bulshada reer Somaliland ay yeelanayaan dawladuna ay lacag ku bixinayso waxa laga maarmaan loo arkay in la mariyo guddiga qandaraasyada qaranka marka guddiga qandaraasyada qaranka muxuu la mariyay iyaga baahiyay waa loo tartamay waxa uu tartamay 11 shirkadood baa ku soo xareystay 9 shirkadood baa ku soo xaadiray 9 shirkadood baa guddiga qandaraasyada qaranka ay kala xureen guddigana waa ka madax banaaneed oo arintaasi arrin guddiga waa shaqo ku leedahay runtii ma yahay mas'uuliyadda waxa loo dhigay guddiga qandaraasyada qaranka oo qaranka uga mas'uul ah maamulidda iyo baahinta wixii mashaariic ah oo la dhisay taalee oo ay biyaha qaybta saddexaad waxa weeyaan in deegaanka sayniskiisa la barto oo cilmiga loo barto oo inuu deegaankeena badbaadsano kalana soo baxno oo maalinta ay 10 sano kadib aanan maqal Dr. Saad Ali Shire wasiirku wuxuu sheegay wuxuu yiraahdo markaa Sheekh joogay
baradhada iyo tamaandhada sheekhyada burco oo dhan siin jirtay maanta cidi wax ma beerato maanta way nagaa waan ku celcelinayaa waan kusoo talagalay qadadaasi weligaa qadada la'aanta kaga noqonayo waayo oromadii baa xidhatay albaabkoodii oo dhibaato ka taagan hadday jaamacaddeenni iyo dadkeenni iyo carruurteenni noo soo baxaan oo ay degaankeena taasi ma dhici doonto kuma dhici doonto boqolka sano soo socda loo tago dee haddaynay jaamacaddu jirin cusbitaalku ma yimaadeen cusbitaalka jaamacaddaa keentay inba sacuudigu wuxuu yidhi waxaan idiin qalabeynayaa shaybaadh weyn shaybaadhka qaranka weyn baan idiin qalabeynayaa buu haddii markaa idinku aad dhammaystirtaan dhismaha dee waxaa keenay jaamacaddaa keentay ee dhismaha maxaa shaybaadhka ilaa haddii kale laynama siiyeen waa weel baynu samaysanaynaa aan dunida ku xidhanno waxna inoogu soo dhacaan ee maxaa aan gacmaha is wada qabsanno oo iska kaashanno sidii weelkaan inuu samaysan lahayn war wanaagsan baa laydin keenay maanta reer sheekh haddaad tihiin kaalintiina waxaa laydin sheegay kaalintiina ka gala insha allah waynu ku guulaysanaynaa biidni illaahi kariim waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka caalamiga ah ee Ariel magaalada Sheekh